kulanti habboon oo wanaagsan guud ahaanba saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaanba waqtigu hayni wacnaada bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qab baynu soo rajaynaynaa. daawada maxaad kala socotaa in qofka bini'aadamkii inta uu nool yahay u maro 3 marxaladood oo kala duwan oo jacayl ah, kuwaasoo guud ahaanba qof kastoo bini'aadam uu soo maro. haddii daawadaad nagu cusub tahay, marka hore barnaamijka share garee, subscribe saar, saaxiibada iyo saaxiibadoodana la wadaag si barnaamijkan ay uga wada faa'iidaystaan isla markaana ula socdaan. saaxiibayaal, haddii intaasi aad samayseen guud ahaantiin aad baad mahadsantihiin. aynu galno qormadeennan waxaan kagala hadlanaa in qofka bini'aadamkii inta uu nool yahay uu maro 3 marxaladood oo jacayl oo kala gedisan, taasoo qof kastoo bini'aadaniba uu soo maro. marka laga hadlayo xiriirka jacaylka, waxaa jira 3 nooc oo jacayl ah oo aaminyo kala duwan amba waqtiyo kala duwan qofka soo mara inta uu nool yahay. jacaylka koobaad, jacaylkani badanaa waxa uu dhacaa da'da koraynimada amaba dhallaanka. aakhirka qofka waad kala fogaanaysaan, waxaad ugu yeedhaysaa waxyaabo nacasnimo ah. marka aad weynaato waxaa laga yaabaa inaad dib u milicsato oo aad malayso inaanu jacayl ahayn, laakiin xaqiiqatan waxa uu ahaa jacayl. jacaylka labaad waa mid adag. midkani waxaad ku dhowaanaysaa inaad dhaawacanto. jacaylkani waxa uu ina barayaa casharro badan oo xanuun badan, kuwaasi oo xoog iyo awood bayna siinayaa. waxaana ka mid ah qalbi jab, been abuur, khiyaamo, xadgudub, ruwaayad, dhaawac. laakiin jacaylkani waa mid inta badan aan ka kororsanano waxyaabana aan ka garwaaqsanano. waxaan jecelnahay iyo waxaynaan jeclayn ayaan kala ogaanaynaa. waxaan ka fogaanaynaa farqiga u dhexeeya aadamaha wanaagsan iyo kuwa xun. waxaynu noqonaynaa kuwo wax badan taxadir sameeya, isla markaana garwaaqsada waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidayaan. jacaylka saddexaad, midkan waxa uu yimaadaa indho la'aan, digniin la'aan, aamusnaan ayuu kugu soo gelayaa. ma aadan dooran qofka aad jeclaanayso. derbi kasta oo aad rabto waad u dulmari kartaa. falal argagax leh ayaad ku kici kartaa. tamar badan oo xoog ah ayuu ku siinayaa. waxaad arkaysaa adigoo qaadaya adaan ku balanbalaadhe, adaan ku baaqayaadhe, badbaadanka rabaadhe, ureeqayso jawaabudhe, kashaada mabaylashendhe, walacalacna kuma badindhe. qofka waxaad ka doonaysaa guur xalaal iyo mustaqbal iyo qoys inaad wadaagtaan amaba aad wada yegleeshaan. waxaad 100% ku kalsoon tahay in qofkaasi aad u qalanto, isla markaana mustaqbal fiican oo nololeed aad wadaagi kartaan. haddaba daawadayaal, qormadeenna waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaasi, in qof kastoo bini'aadaniba uu soo maro 3 marxaladood oo jacayl oo kala duwan. haddiiba saaxiibayaal aad ka hesheen, waxaan iga codsanaynaa marka hore inaad share gareysaan, asxaabtiina aad la wadaagtaan. qormooyinkan iyo mid lamida intaynu ku kulmi doonana waxaynu igaga tegnaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.